رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. كسر هذا مرة بعد كوسكوس كتب حلقة تمناد برنامج كني توبرك نورش كورك إوانك حلقة أنا نحو هاي دون شذا قبت ذي لبعض كوسكوس كور وحنوك هذا النقفكي لقلت تشتا قف صوت تجبر أدي قف كسحية هاي ما دي كراو حية هاي حنتاس أن شاقين متى هاي حن رسولك صلى الله عليه وسلم نحوير أتدرون ما الغيبة ذكرك أخاك فيما يكره حارانتو وحاران غيبة walaalkaaga wax oo karahsanaya inay ka sheegtid ayaa dhahay غيبة sida rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo sheegay taas maxana ma ku tirnayna xaraan miya culimadu waxay dhaheen xantu waa xaraan laakiin waxay banaan tahay lix muwaadin ay ku banaan tahay lix boos waxa kamid ah lixdaas meel mid kamid ah waxa waaye qofkii lagala tashto khaatib qofkii lagala tashto wiil ama gabar la guursan rabo waxa u banaan qofkaas inuu ka hadlo runta oo ka sheego inuu dhaho wallahi heblaayo waa gabar aan wanaagsaneyn oo xun umana qalanto inaad guursatid sabab saas adiga waxaad sheegaysid laakiin waa in ilaahay uga cabsatid kuma banaano inaad wax ka ziyaadisid oo wax ku dartid mana ku banaano inaad ka gaabisid tusaale ahaan oo kale hadii lagu weydiiyo gabar ama wiil guursar rabo hada ogtaa qofkaas inuu dhexdhexaad yahay aad dhahdid waa wiil fiican waa maxaa laay boqor waa ma helaysid qofkaas oo kale adduun iyo aakhiro midna ma keenid hadalkaas waa lagu xisaabinaa hadii aadna ogtahay gabadhan inay maxaa laay dhexdhexaad tahay gabar aan aad u fiican aysan ahayn dhexdhexaad tahay ma ku banaan inaad ka dhigtid gabdhaha adduunka ugu fiican inay tahay sidaas oo kale tan ma ku banaan inaad ka gaabisid xaq qofkaas tusaale ahaan oo kale hadii gabar ama wiil laga wareysto waxa ku banaan inaad maxaa la dhahay waxaad ka ogtahay runta ee ka sheegtay hadaad wax ka ogeyn waxa dhahdaa raali iga noqda wax kama ogi mana aqaan hadii aadan even khabiir ku ahayn aad u aqoon qofkaas sheeg runta ninkan waa la soo masaajid iskuula tukana salaada isla tukana waxyaabo isla cibaadeysan laakiin muamalaadkiisa kale ma aqaan waxa dhacday mararka qaar in qof lagala tashto dadka ay dhahaan wallahi hebel wuu fiican yahay aniga waxa ku arkaa masaajidka sax masaajidkina ku aragto fiicanta laakiin man ugu filno oo kaliya in aad masaajidka ku aragto waxa rabnaa inaad masaajidka ku aragto waxa rabnaa inaad ku aragtid suuqa maxaa la inaad ku aragtid maxaa la guriga meeqa qofood ayaa maxaa la masaajidadooda waaweynka ah oo fiican oo aad u wanaagsan gurigeedina ku xun meeqa gabdhada salaadooda ku fiican maxaa la gurigoodii hab dhaqankan oo xun yahay Umar radiyallahu anhu ayaa mar wuxuu weydiiyay nin maxaa la weydiiyay dadka waxa la dhahay yaa yaqaano hebel Umar radiyallahu anhu markuu soo dhahay nin ba istaag wuxuu yiri wallahi ana aqaano Umar ya amiir al-mu'minin ninkaas uu fiican yahay mumtaaz ma sha Allah aad u fiican yahay كده عمر وحيري ما waxaa tahay dariskiisa u dhow ee agdagan la aad hadalkiisa iyo waxyaabihiisa ka maqashido aad ogaatid kadib wuxuu yiri la ya amiir al-mu'minin kadib Umar wuxuu yiri ma la safartay hal safarta macahu maxay la safarku wuxuu caday akhlaaqda dadkaas la ya amiir al-mu'minin ayuu yiri kadib Umar wuxuu yiri hal aamalta bidirham wa dinar ma suuq iyo bay'i shiraa ya la gashay maxaa la maalad dadka qaar dadka intooda badan waxay ku dhacaan dhankaas maalka kadib wuxuu yiri la ya amiir al-mu'minin kadib wuxuu yiri Umar ma taqaanida fariisankaas waxa laga yaabaa inaad ku aragto rakaca ama laba rakac asagoo masaajid ku tukanayo marka adiga waxa kugu waajib ah inaad nasiixad dhiibtid oo maxaa la dhahay maxaa la nasiixaysid idan hadii xitaa qaadibku ama wiilkaas wax doontay oo walaalka yahay hadii uu yahay mid aad kugu dhow qaraabadaada dhow waxa laga idan hadii gabadhaas ay tahay mid maxaa la dhahay aad kugu dhow walaasha ah runta laakiin sheeg ilaahay subhanahu wa ta'ala qof u haboon si doon laakiin adiga waxa laga rabaa inaad runta sheegtid oo nasiixaysatid waxa dhacday mararka qaar in wiil maxaa la dhahay markii la wareysto la dhaho hebel hebel wuu fiican yahay gurigiisa iyo shaqadiisa u dhaxeeya shaqada iyo guriga iyo shaqada aniga waxa aaminsanahay wiilka saas ah inuu u qalmin inuu guursado gabadhaada aaw masaajidkiisi aaway maxaa la asxaabtiisi iyo maxaa la madaaristiisi iyo waxbarashadiisi iyo aaw maxaa la waxyaabii oo waxa laga maarmaan ah inaad ogaatid waxyaabahaas oo idin
waxaan la abuuro oo kaliya inaan maxaa la cunno cabno aan jiifano kadibna aan shaqadeena aadno dadka oo dhan aan saas sameeyo yaa wiilkan soo barbaariyey xaggii uu wax ku bartay halkuu wax ku bartay maxaa la dhahay aaway asxaabtiisii oo la socdo asxaabta lahaay oo la imaanayay weydii asxaabtiisa walaal weydii maxaa la dhahay dariskiisii iyo dhaqankiisii iyo maxaa la dhahay qaabka ugu dhaqmo weydii maxaa la dhahay gurigiisii iyo masaajidkiisii laakiin in lagu dhaho gurigiisii iyo maxaa la dhahay shaqadiisa ay u dhaxeeya aad ku raali noqotid waa amar aniga aan aaminsanahay inuu soo saxsanayn waxaan laga yaabaa inay adinkana ila aaminsan tihiin waxaa jirto noqdo inta aanan dhammaynin ka hor la xiriirto dhanka maxaa la dhahay doonashada waa maxay xukunka in la qariyo ceebaha uu leeyahay wiilku ama gabadhu oo lagana yaabo in lagu kala tago ceeba adagu waaweyn ay tahay waxaa dhacday mar in gabar ay qabtay maxaa la suuxdin taasna waa cudur ilaahi subxaanahu watacaala aan weydiinayna alcaafiya lana walijamiici marda almuslimiin waliabnaa'ina wa ahlina inuu ilaahay naga wada caafiyo taas waxaa ku dhacday marmarka qaar ay suuxdo maxaa la caqligeedii iyo miirkeedii uu tago cuduradaas noocaas oo kaleetana waxaa laga yaabaa qofka aad guursanayso inuu noco oo kaaga tago oo ku tago qofkaasoo cudurkaas aad qabtay dartiis kaaga tago waxaa dhacday wiil inuu gabadhii soo doontay gabadhu waxay qabtaa cudurka suuxdinta ah waajib waxaa ku ah gabadha ehelkeeda in wiilkaas ay u sheegaan ee dhahaan waxaa rabnaa inaan kuu sheegno ood ogaatid gabadheena waxay qabtaa cudurkaas suuxdinta ah daaway qaadataa way fiicnaanaysaa insha allah alxamdulilah laakiin hadda ogow cudurkaasay qabtaa waxaa dhacday wiilkii inaysan u sheegin familkii maxaa la dhahay cudurkaas ay gabadha qabto fadhigii labaad fadhigii saddexaad meherkii aqalgalkii wixii dhan waxaa dhacday wiilkii in gabadhii uu guursaday caqdigiyaa dhacay meherkiyaa dhacay maxaa la kadib xaas ayay u noqotay waa la aqal galay wiilkii waxaa ku dhacday 2 bilood kadib sidii la deganaayo oo guriga loo joogay 2 bilood kadib asagii uu gabadhii la fadhiyo ayaa waxaa kusoo dhacday suuxdintii kadib gabadhii way dhacday way suuxday wiilku wuxuu dhahay waa cabsaday aad baan u cabsaday horeyna ma ogeyn gabadhan inay cudurkan qabto waa cabsaday waxaas dhahay waa kugu dhiman rabtaa tan kadib cidiyaa u qeeliyo waa wacay waa raadiyey kadib waxaa ogaaday ciddi markay imaadeen mawduucii way qarqariyeen way qasqaseen wixii waa wax la yaab leh wiilkan gabadha in loo sheega ayay ahayd in loo sheego in ay qabto suuxdin waxaa dhacday mar wiil aad u wanaagsan in maxaa la dhahay shil uu galay ilkihii ayaa ka jajabay wiilkii dhammaantood amaba in badan asaga wiilka hadda wuxuu jiraa maxaa la 22 waxa ugu jiro ilko badal qalin iyo waxyaabo noocaas ah oo maxaa la dhahay la bedelay oo kuwii maxaa la dabiiciga ahayn wiilkii markuu guurkii gaaray oo maxaa la dhahay guurkiisi asagoo rabo inuu guursado waxa laga yaabaa marada noocaas inay gabadhu ka cararto ama nacdo qaarkoodna gabdhuhu ay yeelaan oo raboodaan wiilkii waxaa dhacday gabadhi markuu gabadha ka doontay maxaa la dhahay wiil aad u wanaagsan uu ahaay inuu guursado qoys ayuu gabar ka doontay qoyskii uu u sheegay xoodhaaniyo halkaas dhibaa jiro wiilku waa wiil aad u fiican waxyaabihiisa kale dabeecadihiisa kale aad u wanaagsan yihiin heerkiisa heer sare yahay laakiin ceebtii ayuu u sheegay wuxuu dhahay aniga ilkahan maxaa la dhahay original dabiici maahan waa ilka maxaa la dhahay aan gashtay marka waxaa dhacday in familkii markuu u sheegay dhib ma lahan ay dhaheen kadib ayaama kadib lala soo xiriir la dhahaniyo anaga maxaa la cudur daaranaynaa ma rabno maxaa la dhahay naga raali noqo kadib wiilkii uu iska dhaafay gabar kaleeta ayuu doontay sidiisoo kaleeta haddana uu u sheegay maxaa la dhibka uu qabay kadib gabadhu waxay dhahday maxaa ku jaban waa amar iska caadi ee dadka qaarkoodna ku dhaco tan waa mid la xiriirta xaaladda nafsiga dadka qaarkood nafsadooda way aqbalaysaa qaarkoodna ma aqbalayso wiilku u noolaada nolol alxamdulilah fiican aad u wanaagsan dhib ma lahan marka hadda ma banaano in aad qarisid ceebaha laga yaabay hadhow in maxaa la qofkaas aad isguursateen ku kala tagtaan waxaa laga yaabaa ceebo aad u fufudada jiro tusaale ahaan oo kaleeto maxaa la meel garafayr oo ku gaartay iyo waxyaabahaas oo waxyaabo iska caadi ah waxaasoo kaleeto wax lagu soo laabanayo lagu kala tagayo maahan tusaale ahaan oo kale gabadha haddii energy qabto wax dhib leh maahan inay maxaa la qaariso oo wax weyn maahan laakiin waxaa kaa leenahay xataa ceeb weyn haddii ay jirto tusaale ahaan oo kaleeto gabar maxaa la marad maxaa la jildi qabto haraggeeda eber yahay dharkeeda ugu qarsan haragga jirada haragga ee qabto dharkeeda ku qarsan lama arkayo waxa laga maarmaan ah gabadhaas inay sheegto waxaas dhib ma lahan haddii maxaa la waxaa la wiilka uu ku qaato laakiin in ay sheegto waay waxa muhiimka ah ee la rabo inay dhahdo wiil gabadhani waxay qabtaa maxaa la cudurkaas maqaarkaas ee jiradaas ka qabtaa kadib wiilkaas ama ku qaato ama ha ku taga asaga u taala
noqdada ugu dambeysa ee doonashada waa amar horey aan uga hadalnay. maxaynaanu gabdhaheenu ugu doonaynin wiilal wanaagsan sida aan wiilasheenaba ugu doonno gabdhaha wanaagsan? walaalayaal, dhib ma lahan in dhexdeena ay ku faafto habdhaqan aad u wanaagsan oo ah in gabdhaheena aan u doonno wiilal wanaagsan oo u qalmo sida aan wiilasheenaba ugu doonno gabdhaha wanaagsan. haddii wiilku yahay mid aad u wanaagsan oo fiican oo akhlaaq iyo alla ka cabsi leh, ceeb maahan inaan u doonno. walaalayaal, tan waxay ahayd sheeko aan uga sheekeynaynay 2 xalaqo gudahood doonashada gabadh la doonanayo oo ah tilaabada ugu horeysa ee la xiriirta dhanka guurka. xalaqadan soo socoto waxaan uga sheekeyn doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo alcaqdu iyo heshiiska iyo nikaaxa insha allahu tacaala. hadduu ilaahay ka raali noqdo kulanti wanaagsan. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.